wararka waxa uu weyn beesha caalamka oo wali cadaadis saaraysa mucaaradka muxaafadka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo ka fikiraya go'aanka uu ka qaadan karo kasimid ahaanshaha dawladda federaalka Soomaaliya maadaama madaxweyne xasan sheekh uu ku adkaysanayo inuu wali sii haysto hal sano oo sharciyada Aadil Madoobe hogaamiyaha cusub ee loo magacaabay ama loo doortay ama loo xoogay koonfur galbeed ayaa markii ugu horeysay wuxuu jibiyay qodob uu madaxweyne xasan sheekh hore uga hadlo oo ahaa inuu sheegi karo madaxweyne wuxuu maanta bartiisa Facebooka iyo baraha social media maamul goboleedka ku soo faafiyay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed taas oo meesha ka saaraysa qodobkii xasan sheekh uu sheeganayay oo ahayd lama sheegi karo madaxweyne ra'iisul wasaare Xamsa iyo Mahad Salaadna waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb بريميو بحيا مس بريد بومبوي halkaas la isugu tagayaa oo waxa leeyahay waxa la fariisanaya Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor madaxweynaha galmudug ani gulawana mar dambe ayuu soo baraarugo oo wuxuu ogaadayba in xaaladda ay ku xun tahay oo kursigiisa loo socdo oo xawaadle la siinin xawaadla hadda ayuu isagana wuxuu bilaabay abaabul wala sayagow gabadhii biimaalka ahayd ee Sacdiye Macalin Calina markii la sii daayay kubii hawiyaha ahaa ee kale ee u kala dhashay mursadaha iyo habar geedtii abgaalka biimaashi iyada oo cunugeedu uu 8 bilood yahay ayaa wali xabsiga liinta ku cabaysaa xaq iyo xaquuq iyo cid doodana waa la waayay Amnesty International iyo Human Rights Watchna qaylada baa ka dhamaatay dawladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay waxay u yeertay rakadsan mucaaradka oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cayta Cabdiraxmaan Cabshakuur Cabdikiin Xuseen Guuleed iyo Sanbalolshe way la fariisteen waxay u sheegeen in sheekadan laga saaro Mareykanka iyo Ingiriiska sida ay sheegayaan way ka qaybgalayaasha barnaamijka qaar kamid ah in Ingiriiska iyo Mareykanka iyo midowga Yurub iyo qaramada midoobay waxa laga tago oo iyaga loo dhiibay xaaladda Soomaaliya waxa la sheegay intuu wada hadalka socday in qof soo wacay kadibna ay la qaadacay soo jeedintii Turkiga dawladda Turkiga maal badan baa ka gala Soomaaliya oo aan adag bay qaadanaysaa asayaasha arrimaha dibadda aan aadi Donald Trump ayaa markii ugu horeysay isagoo aan faraxsanayn oo ay tabar u dan sheegtay wuxuu saxiixay heshiis aad ay ugu farxeen Iiraaniyiinta aadna ay uga naxeen Israa'iiliyiinta heshiiskaas ayaa dhigaya in nimankaasi shidaalkooda iib geysan karaan in 300 bilyan oo dollar oo mataqaana loo sameeynayo mataqaana fasaxa oo ka xayireen sidoo kale in loo dhisayo dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha ee laga burburiyay iyo sidoo kale in mataqaana iyaguna wada hadalka oo sii socod doono iyo sheekooyin lamida ogow Iiraan way soo baxday waxa kale lagu xir waxay laba arrimood Iiraan oo maxaa kamid ah arrimahaas in ay furayso Hormuz meesha Strait of Hormuz iyo waxa weeye iyo inay ogolaanayso in kormeerayaal caalami ay tagaan oo ay nuclearkeeda ay fiiriyaan oo qiimeeyaan ayagu haddii iska helaan waxyaabaha nuclearka waxaan kale u baahnayn marka horeba ee waa la qasbay xaaladdu horta halkaasay ka shubtay laakiin علماء الدين كي aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo xeeldheerayaasha Soomaalida ayaa waxay muujinayaan kuba ajnabi ah walaa xoogan oo ku saabsan mustaqbalka Soomaalida halka uu ku dambeey doono waxa leeyahay Israa'iil waxay Falastiin ku dhigayso adyaabto ay Soomaaliland soo dhaweysatay waxa leeyahay Soomaaliland ama gobolada waqooyi waxa dhexda laga geliyay dagaal ay adag tahay inay si uga samata baxaan waxa kale leeyahay dad qaar waxay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro horay ayuu wuxuu la shaqeyn jiray hay'adda sirdoonka Musaad la shaqeyn jiray lama hubaani laakiin waa si la sheegay marka waxa leeyahay Cabdiraxmaan waa qasban yahay dadka qaar saas leeyahay laakiin aniga ma ogi ma hubo Sheekh Mustafa uu cadeystay bariis Sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun wuxuuna ka digay waxa soo socdo laakiin waxa kale oo si adag u hadlay in la jirdo oo siyaasiyiinta waaweyn mucaarad ka tirsan warkii jirdo ayaa maanta wuxuu galgalay social media gaar ahaan barta X-ka loo yaqaan ama Twitter-ka Israa'iiliinta xajka dhowrsi joog waxay dhaheen dadka saan noola hadlaaya sababta aan anagu u aqoonsanayno ama aan calaaqaadka ula sameynayno maxay tahay laakiin qodob weyn ayaa taagan wali oo xasaasi ah oo waliba cajiib ah sida ay Israa'iil ama Yahuud ku aqoonsan karto calan tawxiid leh iyo sida ay gaalada u garab istaagi karto calan tawxiid ku qoran yahay oo Ilaahay iyo nabigiisa Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo bartamaha kaga qoran yahay sida ay gaalo ku aqoonsan karto ama loo aaminay inay aqoonsanayaan Yahuud ihdina siraadal mustaqim siraadal ladina an'amta alayhim dhageysta waxa way adkaatay wadaar cala soo dhahaya dabaysha geedaha mar hore ciyaarsiiso sirdoon TV ku xiraw